kulanti wanaagsan oo aan dhageystayaasha nagala socotay idaacadda waddanka ku soo dhawaada qodobadii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka. qodobadana waxa ugu waaweyn Turkiga oo Soomaaliya ugu deeqay 18 diyaaradaha dagaalka ciidankii Cirka Somaliyana tababar u soo xiray dhacdadii 14 Oktoobar oo laba jirsatay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo amar cusub oo la xiriira qaraxii 14 Oktoobar siiyay xukuumadda Soomaaliya ciidanka amniga Kenya oo loogu baaqay in aysan gaadiid maalin xilliyada roobka arrimaha caalamkana waxa ugu waaweyn ciidamada dawladda Syria oo soo dhaqaaqay inay wajahaan kuwa Turkiga xildhibaanada Liberia oo 30% mushaarkooda u jaray horumarinta dalkooda Soomaaliya waa taa cagsigeeda xubno ka tirsan mucaaradka dalka Spain oo xabsi lagu xukumay iyo nin 19 sano si qaldan xabsi ugu jiray oo la siiyay malaayiin dollar oo magdhow ah u diyaar garooba qodobadaas oo fidsan dawladda Turkiga ayaa ciidamadii Cirka Soomaaliya u soo xirtay tababarkoodii waxaana ciidamadu ay tiraahan gaarayaan 5700 oo askari oo wata dhammaan hub u dhameystiran dhan kasta sidoo kale dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya waxa ay siinaysaa taageero dhanka difaaca cirka ah oo isugu jira diyaarado dagaal iyo kuwa waxbasaaso oo waardiyay xuduudaha dalka madaxweynaha Turkiga Erdogan oo qadka teleefanka kula hadlayay dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u sheegay inuusan ahayn kaligiis isla markaana uu haysto walaal buuxa oo ka caawiya dhan walba oo markaasi Soomaaliya u baahan tahay isagoo madaxweynaha dalka Farmaajo uu socdaal ku tagi doono dalka Turkiga soo la soo wareega diyaaradahaasi ee ciidanka ay dawladda Turkiga u tababartay Soomaaliya inay hawadeeda ku difaacato diyaaradahaasi dagaalka ayaa gaaraya 18 toddoba kamid ah yihiin miigaga halka 3 kamid ah yihiin diyaaradaha xamuulka qaada ee militariga loogu talagalay iyo 8 helicopter waxaana meesha ka marneen in hubkan iyo ciidamada Soomaalida ah ee tababarkii ugu dambeeyay la siiyay ee Turkiga Soomaaliya oo si walaaltinimaha ugu talagalay dhanka kale Turkiga waxa uu Soomaaliya deemiyay 5 diyaaradood oo ah kuwa dawladaha hormare ee ku dagaalgalaan isla markaana hawada ay ku difaacdaan diyaaradahan oo madalkoodu yahay T-50TX oo nooca Turkigu sameeya ah ayaa qiimahooda gaaraya 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo markii Soomaaliya cagaheeda ay ku soo istaagto looga fadhiyo inay iska bixido haddii ay Soomaaliya la timaado T-50TX oo ah diyaaradihii ugu dambeeyay ee casrigan loo isticmaalo hawada in lagu difaaco oo ah diyaarado joog sare oo wax ka dila isla markaana qaada madaafiicda ridada dheer oo ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay tilaab military ka qaadi doonto diyaaradii ku soo xadgudubta hawadeeda sidoo kale noqonaysa wadanka kaliya ee ugu awoodda badan dhanka cirka markii loo eego wadamadan dhaca Sub-Sahara Africa ugu dambeyn Turkigu sheegay inuu wado tababarka ciidanka badda Soomaaliya oo 6 bil ka hor uu Turkigu bilaabay isku dubaridkooda waxaana ayagana la filayaa in tababarkooda soo dhamaado dhawaan wixii arintaasi ka soo cusboonaada isha ku haya dhageystayaal idaacadda waddanka dhanka kale haddii aad qiimeyn ku samaysid caayid aadan barre ducaale oo ku caayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ma yahayn aflagaado ku koobneed Farmaajo ee waxay ahayd aflagaado ay Kenya ku aflagaadeysay guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed haddii madaxweynahaaga uu dal kali ah wax ka sheego waxa taasi ay ka dhigan tahay in la aflagaadiyay guud ahaan muwaadiniinta Soomaalida oo dhan Jubbaland waxa ay gacanta ugu jirtaa Kenya waxa ayna adeegsanaysaa ama ay ishorwada Soomaali si ay ugu gaadho ujeedooyinkooda gaar ahaaneed ee qatarta ku ah Soomaaliya inkastoo aan taageersanayn nabad iyo nolol tan iyo wixii ka dambeeyay dhiibistii qalbi dhagax haddana waxa qasab nagu ah inaan taageerno nabad iyo nolol goorta aan siyaasad ahaan aan isahayno dawladda shisheeye si walba oo ismaandhaaf kala dhaxeeyo xukuumadda laakiin ma ahan in aad ogolaato inuu dal kale kugu horcaayo madaxweynahaaga haddii aad ogolaato taas waxay tilmaan u tahay waxaad adigu tahay dhanka kale dunidan aan ku noolnahay waligeed dagaal waa ka dhici jiray lamana arag xilli kaliya uusan dabka dagaaladani shidnayn ama aloosnayn waxaana la soo maray marxalado dagaalo oo taariikhda galay sida dagaal weynihii koowaad iyo kii labaad ee caalamka waxay dunidani soo martay dagaalkii Tataarka ee Mongolisku uu ku qaaday aadanaha kale gaar ahaan muslimiintii dhaxashay hadyigii nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo isagana ka tagay maharto ee ku tikraaran laabaha in badan oo insaanka kamid ah waxayna dagaaladaasi reebeen ee kana tageen xasuuso murugooyinkooda iyo magacyo ee laga argagaxo oo maqaalkeeda aan ku wanaagsanayn dhagaha dadka maanta nool in ay maqlaan sida dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad
dhacaya adduunka wax la mid ah. Saamaynta colaadahaasi ay reebeen waxaa ka mid ah nuclearkii lagu dhuftay dalka Japan oo ilaa iyo hadda dalka ama dadka reer Japan xasuustooda aan ka go'i karin, noqotayna maalin ay xusaan. sidoo kale 14 Oktoobar sanadkii 2017 Soomaaliya waxay u noqotay maalin murugo leh, maalin mugdi ah, maalin madow iyo maalin hal mar uu dhiigooda qubtay in ka badan 1655 qofood. waa xasuus maharta ah, waana maalin guri kasta oo Soomaali ku nool yihiin dal iyo dibadba ay hal mar wada tiraanyoodeen, indhahoodana ay ilmeeyeen kadib markii gaari xamuul ah bagaase ah oo lagu soo buuxiyey sun iyo kiimikooyinka ay kala duwan iyo waxyaabaha qarxa oo aan la sheegi karin waxa ay ka samaysan yihiin ay dad intaas laag ay xasuuq u geysteen. gaarigii shartaasi xambaarsanaa waxaa la dhex keenay dad Soomaaliyeed oo abriyo ah oo waxna ka ogeyn waxyeelada lala maagan yahay. waxaa si naxariis darro ah, diin la'aan ah, bini'aadanimo xumo ah oo ka baxsan loogu qarxiyey faras magaalaha iyo halka halbowlaha u ah ama meesha ay ka badi maraan amaba meesha ugu badan ay dadku maraan ama dadka ku nool magaalada Muqdisho ee loo yaqaan isgoyska Soobe. qaraxaasi oo galaaftay in ka badan 1600 oo qof, saddex jibaarka tiradii dhimatay. haddaba ma noqon shacabka Soomaali sida shacabka Japan, wayse ay ku dhowaadeen maadaama qaraxaasi aan wax badan ka yareen kii Hiroshima iyo Nagasaki ee lagu garaacay halkaasi. runtii waa xasuus maharta ah, waxaana aniga qof ahaan u aqaanaa dhacdadaasi maalinta isgoyska Soobe ka dhacday xasuus Muqdisho oo tii ugu xumeed oo ka dhacday. maxaa yeelay qaraxaasi ma ahayn midkii horay ugu dhici jiray magaalooyinka dalka Soomaaliya, waayo guri kasta oo ku yaala magaalada Muqdisho 64% qof baa kaga dhintay ama qof baa kaga dhaawacmay. waxaa intaasi dheeraa in la waayey oo ilaa iyo haatan la laayahay meydad dad aan tirsi lahayn oo ruqdooda iyo ruuxdooda aan lahayn meel ay ku dambeeyeen. waxaa haatan la isweydiiyaa qaraxii 14 Oktoobar 2017 dhacay wuxuu kaga duwan yahay qaraxyadii hore uga dhici jiray magaalada Muqdisho. dadka badankiisa ayaa waxay isku qanciyaan hadal tiro iyo afkaaro aan lagu adag ku taagnayn oo isbihinbahayn ah oo aad moodo wax qaboojin kara quluubaha qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu sida gaarka ah ay uga soo gaartay, sida in qaraxaasi uu ahaa qaraxii ugu xooganaa ee ka dhaca Soomaaliya abid, in qaraxaasi saameyntiisa uu u horeeyay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, in qaraxaasi uu mideeyay qalbiyada ummadda Soomaaliyeed oo dhan marka si gaar ah loo durjiyo qolooyinka mucaaradka oo iyagu u muuqda xumaanta dawladda Soomaaliya. in qaraxaasi aysan sheegeen argagixisada oo markiiba la soo boodi jiray in iyagu ay ka dambeeyeen sida ay u sheegan jireen kuwii kaas ka horeeyay markii ay magaalada ay ka fuliyaan ilaa iyo haddana way ka aamusan yihiin. madaxda dawladda, maamul goboleedyada Soomaaliya, culamaa u diin aan tiro lahayn, ururada dhalinyarada, aqoon-yahano indhergarad ah, haween iyo dawladaha Turkiga iyo Djibouti ayaa si isku mid ah dhammaantood ugu gurmaday dadkii ay waxyeeladu ka soo gaartay mashaaqadii 14 Oktoobar 2017 ka dhacday isgoyskaasi caanka ku noqday wixii ka dhacay. waxayna isku raaceen mar kaliya dhiig shubid, hanti ururin, gargaar degdeg ah iyo daawooyin, iyadoo dhaawacyadii halista ahaa loo qaaday iyada oo aan gacan bidixayn iyo nin tooxsi ka marnayn dalka dibadiisa si dhaawacyadaasi wax looga qabto. xitaa argagixisada dhexdooda qaraxaasi awgees waxa ay ka dilaacay khilaaf aad u daran oo laba u kala qaybiyey wadajirkoodii, isla markaana abuuray in gudahooda ay birta isla galaan kuna waayaan rag fara badan oo jabkooda soo dedejin kara. haddaba waxaa qasab noqotay in sidii dunidu uga qaylisay hubkii atomikada sunta ahaa wax ugu gumaada oo kale ay Soomaaliduna ugu qayla dhaamisay oo meel kasta oo ay joogaan iska diidaan inay raali ka noqdaan in qaraxaasi oo kale oo mar dambe aan laga soo abaabulin looguna fulin dad Soomaaliyeed, isla markaana ay dawladoodu xalaasha ah ay ku gacan siiyaan soo qabashada kuwa waxaas oo kale farsameynaya. waxaa hubantia in xasuuqaasi maalintaasi dhacay in ay Soomaaliya ay qaateen dareen iyo feejignaan aad u xoog badan, waxaana dalka gudihiisa laga soo abaabulay lagana dhigay isu soo baxyo ballaaran. meesha dalka dibadiisana Soomaalida ay ku dhaqan ay sameeyeen wax loo yaqaan baroordiq, inkasta uu yahay falkaasi wax aan raad ku lahayn dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo diinta xaniifiga ah. waxaan marnaba aan iloobi karin qof ahaan in maalintii uu dhacay qaraxaasi habeenkeedii ku xiga, iyada oo la muujinayo in masiibadaasi xanuunkeeda uusan gaar ku ahayn Soomaalida oo kaliya,
waxaana la damiyey nalalka taalooyinka caanka ah dunida sida taalada Paris, boondada ugu dheer magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, taalada caanka ee dalka Jarmalka iyo meelo kale, taas oo la sameeyey dhibanayaashii Muqdisho in lagu barar dooqo. xasuuqii 14 Oktoobar waxaa maanta laga joogaa 2 sano oo gow ah, mana harin sida aan filayo xanuunkii maalintaasi la dareemay ilaa hadda oo aan joogno, waxaana qalbiyada dadka Soomaalida weli ay ku soo noqnoqonaysaa dhawaaqa qaraxaasi iyo sawirada dadkii dhibaatadu ka soo gaartay. waa xanuun, waa lama iloobaan dhacdadaasi soobe ka dhacday, waxa ayna mudan tahay in aan la iloobin lagana digtoonaado dhacdo midaasi la mida iyo abaabulkeeda mar kale. waa runtay, waan arkay, idinkuna waa idin sheegayaa dhacdadaasi muddadaasi aad u fog laga joogo, waxaa weli maalin kasta ku soo noqnoqda goobtaasi qaraxu ka dhacay, gaar ahaan baadigoobaya oo aan helin dadkoodii, kana harsan qoraxda kulul oo si aad ka naxaysa u eegaya nawaaxiga meeshaasi si ay u arkaan ama u helaan qofkoodii ay jeclaayeen kana maqnaa. waxaan halkan ku qirayaa oo aan ogahay in cid kastaba ay gurmadkaasi ka qayb gashay, wixii ay ka qaban kartayna ay dhinaceeda ka dadaashay, laakiin waxaa la gaaray xilligii la xisaabtami lahaa oo dembigaasi dhacay mas-uuliyaddiisa ciddii qaadi lahayd ee kuwii geystana lagu ciqaabi lahaa. inkasta oo mas-uuliyadda ammaanka uu mid wadareed yahay, cidda u quuseeyana ay yihiin shacbiga Soomaaliyeed, haddana xukuumadda federaalka Soomaaliya iyada ay si gaara u saaran tahay mas-uuliyaddaasi amniga shacabka iyo ilaalinta xasiloonida dalka ah. sidaa darteed waxaa looga fadhiyaa tallaabooyinkeedii hogaamineed inay qaadato oo ay u dardargeliso howlaheeda ammaanka quseeya. dhanka kaleeta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay qaraxii oo ka dhacay 14 Oktoobar sanadka 2017 magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ugu horeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed u diray fariin ku aadan xuska 2 sano guuradii ka soo wareegtay maalinta oo lagu laayay dad badan oo rayid ah. sidoo kale madaxweynaha ayaa faray xukuumadda in laga warqabo dhammaan muwaadiniinta lixaadkooda ku waayay falkan bini'aadanimada ka baxsan. 14 Oktoobar waa maalin xasuus murugo leh, dadkeena Soomaaliyeedna ay u tabayaan. waa maalin aan weynay boqolaal muwaadiniin ah oo u taagnaa dib u dhiska iyo horumarka dalkeena. waa maalin ay argagixisadu si arxan darro ah u xasuuqeen boqolaal muwaadiniin ah oo ku howlanaa nolol maalmoodkooda, ayna agoomoobeen kumanaan caruur ah. qof kastoo Soomaaliyeed uu xasuusan yahay dareenkii murugada lahaa ee ka dhashay weerarkan bahalnimada ah ee argagixisadu ay ku bartilmaamsadeen shacabkeena. si la mid ah taasi waxaa muhiim ah in aan xasuusanno midnimadii, gurmadkii iyo sida dhammaan dadkeena Soomaaliyeed ay uga wada istaageen wax u qabashada shacabkeena ay ku dhibtooday halkaasi. tan iyo waqtigaasi dowladda waxa ay xoojisay howlgallada qorsheysan ee lagaga hortegayo falalka waxxoshnimada ah ee ay soo qorsheenayaan argagixisada. waxa ayna geesiyadeena ciidamada qalabka sida burburiyeen saldhigyo cadowgu ay ka soo maleegi jireen weerarada arxandarada ah. sidoo kalena waxay ciidanka xoreeyeen deegaano ay cadowgu ay ku dhibaateynayeen muwaadiniinteena ku nool. ugu dambeyntii waxaan alle u weydiinaynaa naxariista shuhaadadii inooga geriyootay weerarkan, anigoo faraya xukuumadda in laga warqabo dhammaan muwaadiniintii lixaadkooda ku waayay falkan bini'aadanimada ka baxsan. bal markaana arrimaha caalamka ee xildhibaanka laga soo doortay degmada Dadaab, Dr. Maxamed Daahiye ayaa ka hadlay weerar miino loo adeegsaday maalin ka hor oo lagu dilay 11 askari oo ka tirsanaa booliska Kenya. qaraxa oo burburiyay gaari cadibile ah oo ay saarnaayeen ciidankan ayaa ka dhacay deegaanka Xarxarka oo u dhaxeeya deegaanka Liboy iyo magaalada Dobley. Mr. Daahiye oo qadka teleefanka uga waramayay ayaa tilmaamay inuu aad uga xun yahay askarta lagu dilay weerarka, waxaana uu ugu baaqay ciidanka inay feejignaan dheeri ah muujiyaan. isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kaleeta wuxuu sheegay argagixisada xilliga roobka ay ka faa'iideystaan maadaama dhulku uu doog noqonayo. xildhibaanka degmada Dadaab ayaa ugu dambeyn ugu baaqay ciidanka inay lugta isticmaalaan si loo badbaado ee khasaaraha badan ee looga hortago. dhanka kaleeta ciidamada Syria ayaa la sheegayaa inay soo gaareen magaalada Tel Tama oo ku taala qaybaha ay Kurdishka ay ku maamulaan ee waqooyiga dalkaasi, kuwaasoo wajahaya weerarka Turkiga. ciidamada dowladda Syria ayaa magaalada soo galay saaka aroortii kadib markii ay heshiis la gaareen maleeshiyaadka Kurdiga, sida ay faahfaahinayso wakaaladda wararka ee Sana. Tel Tama waa magaalo yar balse ku taala halka ay iska jaraan dhowr jid oo halbowle ah, waxaana soo baxaya muuqaalo la faafiyey oo muujinaya ciidamada Syria oo halkaasi gawaari ku imaanaya.
mar sii horeysay ciidamo kale oo dawladda ka tirsan ayaa la sheegay inay gaareen Tawra oo ah magaalo ku taala gobolka Raqqa oo ku taala daamaha webiga Furaad taasoo sidoo kale aad ugu dhow biyo xireenka weyn ee halkaasi ku yaala Turkiga laftiisa ayaa wata Malaysia isaga la socota oo deegaanka ah bal dhanka kale xildhibaanada Liberia ayaa isku raacay inay 30% dhimaan miisaaniyadda iyaga ku baxda sida mushaarooyinka iyo gunooyinka marka la gaaro 2020 xildhibaanada ayaa sheegay inay taa uga gol leeyihiin in lagu hagaajiyo dhaqaalaha dalka si lacagahaasi ay iska jarayaan loogu bixiyo adeegyo kale oo ay bulshada ay aad ugu baahan tahay waxa adeegyadaasi kamid ah dhinacyada waxbarashada caafimaadka kaabayaasha korontada iyo wixii la mid ah waxa sidoo kale tilaabadan oo kamid ah raacista soo jeedinta IMF ee gunti isku jir gijiska ah sida ku qoran front page Africa oo ah warqaad ka soo baxa dalka galbeedka Afrika waxa qorshahan uu u keenay madaxweyne George Weah oo ahaa laacib hore dawladda ugu biiraysa lacag dhan $7 milyan tilaabadan ayaa dhanka kale ta imaanaysa bil kadib markii ay shacabka Nigeria ay aqalka sare ee dalkaasi dacweeyeen kadib markii ay keeneen hindisaha in ay soo iibsadaan gawaari oo midkiiba uu ku kacayo 5 bilyan oo naira oo dalkaasi ah dalka Somalia oo ah dal uu dhaqaalihiisu dhulka yaallo oo ay mushaarooyinka hay'ado iyo dalal shisheeye bixiyaan aragti noocan xisaabtama kuma jirto balse waxa aad loogu hardamaa sidii loo keeni lahaa mooshin danaysi ah oo loogu helo dollar raaluush ah oo laftiisa deeq loogu keenay dhanka kale maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa isniintii xukunno xabsi ah ku riday 9 kamid ah 12 eedeysane oo loo haysto dhiirigelinta doorkii ay ku lahaayeen sanadkii 2017 oo lihii fashilmay ee gobolka Catalan madax banaanida ee ku qaadan rabay xukuunada lagu riday shakhsiyaadkan oo isugu jira 13 ilaa 9 sano ayaa ka hooseeya midkii ay dalbanayeen dacwad oogayaasha oo dhan oo 25 sano dadka xukuunada lagu riday ayaa waxa kamid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Catalan Oriol Junqueras kaas oo qayb ka ahaa ololaha gobolkan oo ku doonayay inuu kaga go'o Spain xukunkan ayaa waxa cambaariyay madaxii hore ee gobolka Carles Barxa waxaana uu sheegay in la gaaray waqtigii laga jawaab celin lahaa arintan Barxa oo musaafuris ahaan ugu nool dalka Belgium ayaa ahaa barta Twitterka ku soo qoray waa in ay ka fikirnaa mustaqbalka nolosha iyo wiilashayada ee galbanaya ugu dambeyn nin u dhashay dalka Australia oo lagu magacaabo David Aston ayaa muddo 19 sano ah kadib lagu soo daayay xabsi uu ku xirnaa kadib markii la ogaaday in ninkaasi si qaldan xabsiga loogu xukumay David Aston ayaa xukun xabsi daa'in ah lagu riday sanadkii 1996 ninkan ayaana loo haystaa dil loo geystay Colin Winter oo ahaa ku-xigeenka taliyaha booliska federaalka dalka Australia sargaalkan ayaa madax laga toogtay isaga oo hortaagnaa gurigiisa waxaana dilkaasi la sheegay in uu xiisad ka dhaliyay dalkaasi waxa uuna ahaa sargaalkii ugu horeeyay oo boolis ah oo lagu dilay Australia David Aston ayaa 19 sano kadib maxkamadda racfaan u xukuntay in si qaldan xabsi ugu jiray waxa ayna maxkamadda xukuntay in ninkan la sii daayo sidoo kalena la siiyo lacag gaaraysa $4.8 milyan qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkeena idaacadda intii aan ka gaarayno wararkeena xiga dhageystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah